إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى waxaynu soo tabin doonaa aynu soo gudbin doonaa barnaamij kooban oo aynu ugu talagalnay maalmahan ramadaanta insha Allah ta'ala inaynu soo gudbino oo aynu jeclaysanayna barnaamijka inaynu ku soo bandhigno oo aynu jeclaysanayna barnaamijka inaynu ku soo bandhigno tashiil al-ahkam ash-shar'iyya أحكامta sharciga fiqhiga inta badan fiqhiga ku soo arooray iyo fududeynteeda dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala awaamirta uu saaray iyo diinta Ilaahay uu soo dajiyay ee uu ku kalifay waxa uu qaybsantaa awaamir iyo nawaahi bay u qaybsantaa awaamirta iyo nawaahidana culimadu si guud waxay u yiraahdaan al-ahkam ahkaamta sharciga ah oo Ilaahay adoomaha uu ka rabo ayaa dadkii intii faraha badnayd wax kala dad mashquuliyo adduunyadaas la iskaga mashquulayo cidii talabul cilmi ee u rixlaysa mooyaane intii badnayd dadkii kale way gaari weydayba wixii Ilaahay ka doonayay wixii Ilaahay ka reebay subxaana ahkaamtii waajibaadkii iyo asaasiyaadkii wax badan dadkii waa ka qarsoon yihiin marka insha Allah ta'ala walaalayaal barnaamijkan waxaynu ku wadaagi doonaa ahkaamta sharciga cibaadaadka sixidooda soo dhaweyntooda iyo fududeyntooda insha Allah ta'ala aynu ku soo gudbin doonaa marka koowaad waxaynu leenahay لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع إلهي لقوا مع عبده وحو إلهي شرعيين موياني دينتو وحيو باهانتي أقوان بيو باهانتي فرق استالله فيغيا وحيو باهانتي أقوان إيو قفكو إنو قرنا إيو مصدر كيدا إيو وحي كيدا إيو دليل كيدا إنو قرنا إيو ما بنانا قفكو إنو اسكا عبادة يستيساقو وحا وكو عبادة يسانيان قرنين شرعا وان علمي كسو قارين انت فراها بدان رأي بينكو باربارنا يو dadku waxyaabaha kala cid waa aqoonta leh u daayaan inta badan gaari hadii laga shaqeynayo qofka waa aqoon leh inuu u diraa dhismaha hadii laga shaqeynayo qofka waa aqoon leh inuu u diraa laakiin diinta waxaad moodaan nin waliba inuu gooyisa dhax qaato oo iska dhax socdo nabiga waxa ka soo aroortay sallallahu alayhi wasallam inuu yiri talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslima imam ahmed iyo qeyrkood soo wariyeen ahlul ilmi badan xadiiska way saxiixiyeen waxay tilmaameen inuu sugan yahay macnaha uu sheegayaan waxa weeye qofka muslimka waxa ku waajiba iyo muslimadaba inay cilmiga bartaan cilmigu dabcan uu baahsan yahay lama koobi karo culimadu waxay yiraahdeen cilmul xaalka waxa la yiraahdo hadba qofku xaaladda uu ku dhex jiro cilmigeeda inuu yeesho waa waajib hadduu ganacsado yahay suuqa iyo ahkaamta sharciga ee kala gudboon inuu yaqaan hadduu tabiib yahay tibbiga iyo dhakhtarnimada iyo diintiisu waxay ka tiri waa inuu garanayo hadduu salaad tukanayo salaadii waa inuu garanayo waxa kada waxay culimadu baabaysteen sida Bukhari oo kale kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu baabaystay baab la yiraahdo baabun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal cilmiga iyo waxogaashuhu way ka horeeyaan qofku intaanu xawa sameynba intaanu hadal oran aanu ficil sameyn horta waa inuu cilmi yeeshaa kadibna cilmiga uu ka intilaaqayo isagoon cilmi lahayn hadduu wax fuliis yiraahdo wax buu fasahaadinaya taasina intaynan daliilkeeda iyo cilmigeedaba baarin aqligu waa tuukeenayba oo qooskan lagu sameeyo lagaga sameeyo xabada furinka ah qof aan aqoon lahayn ku aamini maysid kan kule bal maanta ku tijaabinaya waxaad leedahay tijaabina ku hore u yaqaanay bal igu dhiib xabada roodida ay khasaaranina wax kastaaba oo iska caynkaas oo baabuurta sameynteedii guryaha dhiskoodii qof aan aqoon lahayn mooyaan qof aqoonteeda lama cid kale uma ogolaanayno sidaas oo kale ayay saameynteeda leedahay arrimahan sharciga ahna iyo diintuna qof aqoonteeda oo la yeesho mooyaan aan banaanayn in la fuliyo hadiiba la isku dayay aqoon darro in wax lagu fuliyana marna naar baa ka timiday marna cadal baa ka timiday marna soo celin cibaada ka timiday intuba sunnaha nabiga ku sugantay sallallahu alayhi wasallam nin doonay inuu cilmi la'aantii wax ku fasahaadiyay cadal nabi baa ku sugnaatay sallallahu alayhi wasallam oo saxaabada qaarkood waqti waxa dhacday inuu nin xanuunsaday oo nabar madaxa ka gaadhay kadibna uu tagay qolo kale uu ku yiri wareedhaha nabar baa igu yaala xadiiska Tirmidhi iyo qeyrkood werinayaan oo niyo biyana deewaan janaabo qaba markaas ay yiraahdeen maydho markaas uu nabar baa igu yaal xal kale ma hayna maydho bay yiraahdeen niyo wuu maydhayo biyihii baa nabarkii kaga dhacay oo ninkii wuu dhintay nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu uu nacdalay qataluhu qatalahum Allah la saalu idha lam ya'lamu inma shifaa'u al-'ayyi su'al
allaha nacdale ninka way dileen may dadka su'aal iyo cilmi weydiiyaan si cidda aan waxba garanayn cilmi loogu faa'iideeyo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jahliga waxa ka dawa ah su-aasha iyo cilmiga iyo in wax la baadho ayaa ka dawa ah mar kale salaada iyo cibaadada gebigeediiba in lagu celiyey jahligu keentay oo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa tukaday almusii'u fii salaatihi caan ku ah saxaabigii raafic ibnu khadiij la odhan jiray masaajidka soo galay salaad buu tukaday nebigu wuxuu ku yidhi ku celi salli fa innaka lam tusalli hadda u fiirso salaadda waxbaad kharibtay xaaji iyo waxbaa kaa xuniyo waa hadal wanaagsan dhadhow badda yacni hadal miskiina weeye hadal fudud weeye hadal laisla saa'irayo laisla saamaxayo weeye laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu ku yidhi hadal adag salli fa innaka lam tusalli salaadda gebigeedaba dib ugu celi kumaad celin tuko salaadda dib u tuka baa nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam maa tukanni salli fa innaka lam tusalli waxay sheegaysaa min albidaaya ila alnihaaya cibaadadaadii waxba kama jiraan tirsi ma laha ictidaad ma laha iyo tirsi ma laha saasaa nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam waxaynu u baahannahay walaalayaal cibaado un la iska sameeya maaha cibaado la saxdaynu u baahannahay maadaama dadku social mediahan iyo un internetyadan iyo waxaan lagu wada jeediyo tiifiyadan iyo howlahan dee iyada lafteeda waxay keensanaysaa min alcaqli wa min asharci waxaa ka mid ah in loo mariyo dadka cilmigii iyo diintii iyo risaaladii rabbaaniga ahayd in loo mariyaa iyaduna waa mid muhima waana tan aynu wadno oo insha allahu tacaala barnaamijkaas aan ka soo gudbin doono axkaamta sharciga ah ee qofka muslimka ahi uu u baahan yahay waxaynu haddaba hordhac ahaan u tilmaami lahayn waxaa la yidhaahdo alaxkaamu sharciya xukum ilaahay ku saaray marka aad doonayso inaad ogaato culimmadu waxay yidhaahdaa waa axkaam xukmigana asalkiisa waxaa la yidhaha xakamaa laga keenay min alixkaam oo waa marka waxa weeye qowlalka lagaga qabto xakama faraska iyo dameerka marka saa loogu qabtaa waxaa la yidhahdaa axkama ilaahay subxaana watacaala baa qofka mu'minkaa qowlal qabanaya oo odhanaya halkaa ka joog halkaa gal halkaa laguma ogola axkaamtaas culimmadu si guud waxay u qaybiyaan laba qaybood axkaam wadciya takliifiya axkaam wadciya waxay u jeedaan waxaan inuu kaa fulay iyo inaanu kaa fulin waxyaabaha lagu garanayo sida sixada iyo fasaadka oo kale in markaa waxa weeye shayga shardi loo dhigo in maanic lagu sheego la yidhahdo waxaasaa diidaya kan kanaa u rukniya ruksada iyo casiimada waxyaaba fara badan bay culimmadu ay geliyaan waxa la dhaha axkaam wadciya taasna fahamkeedu hadda uu inagu yar cuslaanaya axkaam takliifiya baan u dan leeyahay hadda inaan fahamno oo in badanna inagu soo noqnoqon doonta axkaamta takliifiga ah siday culimmadu sheegaan waa 5 qaar 6 ka dhigaana way jiraanba axkaamta takliifiga ah waa wax kasta oo diin ah oo lagu sheegayo 5 arrimood mid un buu noqdaa ama kow wuxuu noqdaa wax kugu waajib ah waajibna culimmadu waxay ku tacriifiyaan ay ku qeexaan maa talaba shaaricu calaa wajhi alilzaam waa wixii sharcigu uu kaaga doonay qaab go-an oo samee waa samee lagu yidhi sida salaadaha 5 ah oo kale sida soonkaa ramadaaneed soomayso oo kale waa wax go-an oo lagaa doonayo xukumka ama thamarada iyo midhaha laga helaana waxa weeyaan haddii waajibkaa la sameeyana ilaahay addoomaha uu ka abaaliyaayo khayr bay ka helaan hadday ka tagaanay samayn waayaanna yastaxiquuna alciqaaba bitark ka tegidda ay ka tegeen waxay ku mutaystaan in lagu ciqaabo ilaahay waa u dhaafi karaa subxaana naxariistiisa badan laakiin waxay mutaystaan in lagu ciqaabay mutaysan yihiin waajibka hadday ka tagaan waa xukumka koobaad waajib baa laydhaha qaybo fara badan iyo tafaasiil iyo sharax badan buu leeyahay inaga soo koobkoobaynaa qaybka labaad ama xukumka labaad waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo almanduub manduub ama waa sunne waxaynu u naqaano isku macne uun manduub iyo sunne iyo ragiiba iyo fadiila iyo waxaasoo dhan waa isku macne waxaa loo jeedaa maa talaba shaaricu laa calaa wajhi alilzaam waa wixii sharcigu uu kaa dalbay uu kuli samee laakiin si go-ana lagaaga dalba inaad ka tegi karto waa inaad samaysaa way fiican tahay laakiin waa ka tegi kartaana xukumka noocaasana thamarada iyo midhaha laga goostaa waxa weeyaan waa ilaahay subxaanahu watacaala inuu abaaliyo qofka sameeya cidda iskaga tagtana aanu ilaahay u ciqaabin tusaalaheedu waxa weeye sida marka la weysaysanayo oo kale in la iska cadaydo maalinta jimcaha oo kale in la isa sii udgiyo oo cadar la marsado sunnayaasha salaadaha raacsan in la tukado waa sunne waxyaabaha culimmadu yidhaahdaan laakiin dee sidii kale aynu isaga taag daranay culimmadu waxay yidhaahdaan yatrukuuna sunnata bismi sunna sheekh albaani oo kale ayaad uga caan baxday sunnaha loogama tago waa sunne eewaba laga faa'iidaystaa waa lagu faraadayga waxani waa sunne marka lagu yidhaahdo waa lagu mitidaa waajibkuu dhowraya ayuu hagaajinayaa moogtahay oo sida kalena khayr badan baa ugu jira xukumka saddexaad waxaa la yidhaahdaa alxurma aw ataxriim
حارانتنا وحوية وما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام ووحي الشارع إن قدونه وإلهي إن قدونه سبحانه وتعالى إنه كتقنا إنه وليبا وقتقنا سجوا أن أنفرها كقاضنا حرام بالله كتقوي ثمرة يمرها لقى قوستا وحوية قفكو هدو إسكا تقنا إلهي بكا أباليه هدو سمينا والله عقاب بكم متيستا هدان إلهي وعفنين حرامta tusaalayaasheedu de waxyaabaha faraha badan ee shareecadu ay diiday khamriga beenta zinada isku dirka namiimiyaha warka dadka loo kala qaado waxaas oo dhan baa waxa la oranayaa al-hurma xukunka afraad wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo al-karaaha karaahaduna waxa weeye ma talaba shaaricu tarkahu la ala wajhi al-lisam wixii shaaricu inaga dalbay inuu ka tagno laakiin si go'an aan layno oran ka taga oo iska fiican tahay inuu ka tagno karaahadu waa kaas weeyaan tusaalayaasheedana culimadu waxay ku tusaalayaan kala iltifaati fi salaa salaada dhexdeeda oo mesela qofku uu daymoodo indhaha warwareejiyo oo kale bidixda oo wax ku bixiyo oo wax ku qaato oo kale waxyaabahaas culimadu waxay ku tusaaleeyaan waa karaaho xukunka u dambeeya shanaad wuxuu noqonayaa al-ibaaha waa afarta xukum waxa isku xidho oo dhexda u ah waa banaani waa waxaas la yatacallaqu bihi amrun ولا نهي ومركا أن أرنكا ديد من الله حديرين أقراشنا الله حديرين يعني لقورن وأنا لقوه قولي هاي وأنا لقوه ديدي مدنا عن لقورن وأصل هالكائنات كفريستي أنا تكون بياع عبتين تكديس أو شرع وكيري مشرتي وجائز ومباح أما جائز لا بد والله هذا مباح سنة وحكم كشناد أفرتاك لا يكد الوريجان علماء قاربا كل لحاد كدرا خلاف الأولى الله هذا أو يكرم بليان كراهة وإليه كراهية ووحي الدليل منصوص صها عد مال كسر لقى قاته سع عامة أما سجود وحل لقى قاتنا والدليل قارئ أنا كسرورين وكراهة معنى أنا خلاف الأولى كشيئا بل هذا سلو فهمي كرا طيبك عذر إلا مرصد حكم كيد وما حلولنا يدور على الأحكام الخمس سنة بونا وكراه واجب كي علماء قارئ استشكال كشيئا لكن أنت بونا وكراه قفكو هدو عذر كأمر سنة يو dee markaa waxa weeye fuxshi iyo xumaanad ku soo samaysid waa xaaraan haddii uu u samaynayo maalan wax karaaha ah inuu gaadhsiinayo wuxuu noqonayaa karaaho hadduu u samaynayo cadarkaa ismarintiisa wax waajiba inuu ku gaadho waajib buu noqonayaa wax sunno ahoo wanaagsan hadday tahay sababta uu u samaynaya wanaag iyo sunno iyo fadli buu ku gaadhi saasaa loo wadayaayo waxyaabaha mubaaxaadka asalkoogu intooda faraha badan leh yaduuruuna cala alaxkaam alkhams waa laga yaabaa inta badan inay shanta xukunba ay noqdaan waxaynu walaalayaal inta badan soo qaadan doonaa xalqadeena laga maqmaqli doonaa oo jecelahay inaan halkan ku baraarujiyo culimadu waxay isku khilaafeen baa inta badan leeyahay dadka aan kutubtan iyo waxaan inta badan ku dhex jirin talabul cilmigu kelmadaas aad bay ula yaabaan oo culimada maxaa isku daray isla khilaafeen bay yiraahdeen laakiin culimadu way iskhilaafeen waxa loo jeedaa way kala aragti duwanaadeen oo arintan daliilkan quraanka iyo daliilkan xadiiska ayaa ninba si u arka inuu si u arkana waxa keensanaysa waaqica ama luqada carabiga keensanaysa أما استنباط قواعد الاستنباط والاعتبارية وحي علماء يقانان تصالح كوبنا كبحيو وقت النبي عليه الصلاة والسلام وحي النبي يقول لا يصلين أحد إلا في بني قريظة قالوا جهاد أساريو مركز الصحابة يقول راب بني قريظة يهود دا وأن صلاة عصر اللي قلت كذا والله بحي صلاة دي عصر لو بيضلات كي كسور دوادين بني قريظة صلاة دي عصر بيقادي صحابة النبي وحي داهدين وراها لها أنه تكنوا كدبنا ينكوه رقفني غلطني qoladii kalena waxay yiraahdeen maya sawkii nabigu idin yiri salaada casar waa in reer bani qurayda lagu dhex tukadaa markiiba waxa halkaas soo booday laba arrimood oo suuragal salaada casar reer bani qurayda ku dhex tukada ma waxa loo lahaa un nimanka waxa weeye garka ku soo dhufta un baa loo lahaa soo laay oo ku dadaalo oo u dhaqsada un baa la lahaa ee salaadu xilkayna ugu qabataba waa lagu tukan mise sideedaba loo doonay in reer bani qurayda salaada casar lagu dhex tukado labadu waa macquul ومن ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت جيسي صحابة اسكو قبتين هدو النبي الله شيء صلى الله عليه وسلم ولم يعنف على أحد عندنا مو عنانا اختلاف جائز ويان سيلفتي سو أنواع تفاصيل فربضن بوبا هذا مجلس كان مرران هاي إنه كذا هذا الله حد خلاصة دي قنت أن كدوني وحويان أنت الدروس شرحنا هذا اختلف العلماء اسكو خلافه وحلوه كذا ما هم معناه قنت جاي كلا حدينا وقاي كلا قاتينا ولا شو قلي وي ما أساس معناه waxa weeyaan ahlul cilmigiiba arinta ku kala aragto duwanaaday qaar ogolaaday iyo qaar diidayba insha Allah taala waxaanu ka bilaabi doonaa sida ahkaamta sharciga ay tahay tahaarada ila salaada soonka zakada saasayna ku wadiinta Ilaahay naga karsiyo
aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.